حتى حيوانات كرسولك صلى الله عليه وسلم وتري جري رسولك وأنا حريص بدنا صحابتي سنة وأمر جري ومدي إن حيوانات الله نحريسته قصوين كوحا كم ذا حيوانات كنا حريستي النبي يقولون حريسين جري ده بعد يسمع عن كم ذا وكل رقم جري وحا كم ذا حديث عبد الله بن جعفر وورينا يوحوا لي رسولك صلى الله عليه وسلم أي مال ما كم ذا نافكي وصارنا أيو قداشي سإساري أردفني وإفنجلي النبي صلى الله عليه وسلم قداشي سوساري مركاسو النبي صلى الله عليه وسلم dhegta wuxuu ii saaray buu yidhi war iyo khabar aan cidna u sheegayn nebigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam warkaasi wuu qarsaday wuxuu ugu jeclaa buu yidhi markuu xaajadiisa gudanayo waxuu isku asturo geedaha timirta ah iyo beerahaasi inuu dhex galo ama hadaf shay uun inuu muxuu ahaa isku qariyo jeclaan jiray buu maalmaha ka mida ayuu marka wuxuu galay buu yidhi beer geedo waaweyn oo beerihii ansaareed ka mida ansaar beeraheedii mid ka mid uu nabigu galay sallallahu alayhi wasallam markuu beertii dhex galay ayuu wuxuu ugu tagay neef geela neef geelu ugu tagay rati markuu arkay geel ratigii markuu nabiga arkay sallallahu alayhi wasallam ayuu markaa fajarjar waa codeeyay waa ololay indhihiisana waa ilmeeyeen waa neefkii geel ahaa waa ilmeeyey waana sawdeeyey markaasaa wuxuu yidhi rasuulku sal alla alay wasalam meeshan tawaadda ah iyo halkanuu ka masaxay gacantuu ka mariyey nebigu sal alla alay wasalam markaasuu neefkii geelaha wuu xasilay yacni waxa weeye ololkii iyo qayladii iyo ilmadii iyo wixii buu daayey markaasaa nebigu wuxu uhi sal alla alay wasalam man saaxibu ljabal war neefkan yaa iskale neefkan yaa iskale yaa iska lahaa neefkan buu nabigu sallallahu alayhi wasallam neefkan geela yaa lahaa rasuulku salawaatu rabbi wasalaamu calayh markaasaa wiil dhalinyaro oo reer ansaareed ah ayaa yimid markaasaa wuxuu yidhi yaa rasuul allah anigaa iskale neefkan anigaa lahaa markaasaa nebigu wuxuu yidhi sallallahu alayhi wasallam alaa tattaqi illaaha fi hadihi albahiima allatii mallakaka allah miyaadan ilaahay uga baqaynin bahaa'imtan aan hadlaynin ee ilaahay kuu gacan geliyey ku milki siiyey maad ilaahay uga baqdid buu ku yidhi innahu shakaa ilaya annaka tujiicuhu wa tud'ibuhu wuxuu ii sheegtay buuhi iiga dacwooday ratigani ama neefkan geeli wuxuu iiga dacwooday in aad yacni waxa weeye gaajaysiiso oodan cunto ku fiilan siinin midda labaadna inaad daalisood rafaadiso wuxuusan qaadi karin iyo aad ku haysana wuu ii sheegay buu nebigu sal alla alay wasalam leanna nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh mucjizaadkaysay ka mid ahayd marmarka qaarkood geedaha la hadli jiray iyo jamaadaadka marmarka qaarkood xayawaanaadkaasaa la hadli jiray hadaladoodana wuu fahmi jiray nebigu sal alla alay wasalam marka ratiga wuu fahmi nebigu inuu dacwo yahay markaasuu kii lahaa intuu yeedhay buu yidhi sidaa ka daa neefka uga naxariisto sidaasi ilaahay baa gacanta kuu geliyey sidaasuu rasuulku yidhi sal alla alay wasalam ibn abi shayba iyo axmed iyo abu daawuud baa wariyey muslim sidoo kale laakiin qisada jamalku kuma jirto riwaayada muslim mar kale nebigu sal alla alay wasalam waxaa ka mid a naxariistiisii uu yani xayawaanaadka kale ugu naxariisan jiray shimbiraha sidoo kale yani xayawaanaadka in la dhibo waa uga naxariisan jiray nebigu sal alla alay wasalam xadiidka saciid ibnu jubayr wuxuu leeyahay ibnu cumar baa wuxuu soo maray niman dhallinyara oo reer quraysheer ah oo intay shimbir meel ku xidheen ama shimbir meel dhigeen tooganayo ku toog dhisanayo toogta ku baranaya markaasaa waxa weye ninkii shimbirta iska lahaa waxay yidhaahdeen yani ganitaan kastoon la gafno waxbaad ku leedahay shimbir baa marka meeshaa la dhigay waa la tooganaya marka waa lagu toog dhiganaya waa lagu toog baranaya ibnu cumar baa marka soo maray markaasaa markay ibnu cumar arkeen cabdillahi ibnu cumar saxaabadii nebiga sal lla lay slam ka mid ahaa markay arkeen bay kala carareen dhallinyaradii markaasaa ibnu cumar wuxuu yidhi man facala haada lacana allah man facala haada war yaa sidan yeelay lacnadii ha ku dhacde yaa sidan yeelay lacnadii ha ku dhacde wuxuu yidhi ina rasuula allahi sal lla lay wasalam lacana man ittakhada shay-an fiihi ruuxu garadan nebigu sal lla lay slam waa lacnaday ruux kasta oo wax nafi ku jirto ka dhigta hadaf uu toogto wax lagu toog dhisto lagu toog barto noole ruuxii ka dhigtaay lacnada ilaahay ku dhacdo nebigu waa lacnaday buu yidhi sal alla alay wasalam marka yani waxa weye waa noole waa shimbir naf baa ku jirta inaad ku ciyaartood ciyaar ka dhigatood aad toogtoogatood rafaadiso maya ilaahay xikmad buu u abuuray haddii la intifaacsanayo meesheeda wey
haddii la intifaacsanaya xataa loogu talagalay inaan naxariista laga tegin. xadiidkaasi muslim baa soo saaray. isla xadiid kale oo iyadana shimbiraha ku saabsanaya nebigu sal alay wasallam si ugu naxariisan jiray, xadiidka cabdiraxmaan ibni cabdillaah aabihii buu ka warinaya. wuxuu yidhi yani waxaan ahayn rasuulkaan la joognay sal alay wasallam, safar iyo socotaan ahayn rasuulkaan la soconay. ayib nebigu marka sal alay wasalam saxaabadiisi isagoo la socday wuxuu aaday xaajadiisuu aaday, dan buu u baxay, si gooniyu meel ugu baxay nebigu sal alay wasalam. markaasaa waxaan aragnay buu yidhi saxaabadii haddaan nahay shimbir laba ilmoodoo yaryara haysata. labadii ilmoodoo yaryarkaad baan ka qaadanay, dhal yar yaa ay meel ku haysataa, meel ay gashatay ama buul ay gashatay baan ka qaadanay. markaan kala baxnay ayaa waxaa shimbirtii waxay bilowday buu yidhi inay baalasha ay kaga balbalsiiso oo muxuu ahay baalasha ruuxdo oo ay wareegto oo ay muxuu ahay degi weydo. markaasaa nebigu sal alay wasallam nebigaa yimid. nebigu marka wuu gartay shimbirtan dulduulaysay rafaahsanay garba muxuu ahaayey kolba dhinac u duulaysaa, waa gartay in wax lagu sameeyey. markaasaa nebigu wuxuu yidhi sal alay wasallam man fajaca haadihi biwaladiha, war yaa argagixiyey, yaa ilmaheeda ku argagixiyo sidan u galay shimbirtan. rudduu waladaha ilayha, ilmaha u soo celiya buu nebigu sal alay wasalam, ilmaheeda u soo celiya. maxaa u argagixinaysaan? hooyo ilma haysata waaye, caruurteeda maxaad uga nixinaysaan? maxaad u dhibaataynaysaan? maxaa u rafaadinaysaan? soo celiya ilmaheeda buu nebigu sal alay wasalam. mar kale wuxuu yidhi waxaan aragnay buu yidhi, wuxuu arkay buu nebigu sal alay wasalam oo uu ishiisu qabatay qariyo muxuu ahaayey baashan quraanjada meel ay degan tahay, degmad ay quraanjo degan tahay oo la gubay, oo saxaabada qaar ka mid a ay gubeen oo dab qabadsiiyeen, waa quraanjo. markaasaa nebigu wuxuu yidhi sal alay wasalam man xaraqa haadihi, war yaa tan gubay, yaa quraanjadan yaa guboo dabka qabadsiiyey. markaasaa waxaan idhi annaga way rasuulka ilaahayo. nebigu wuxuu yidhi sal alay wasalam marka innahu laa yenbagii an yucadiba binnaari ilaa rabu nnaar, ma habboona dabka inuu wax ku ciqaabo oo ku gubo ilaa rabbigii dabkan iska lahaa mooye, dab wax laguma ciqaabo. saas daraaddeed shareecada cuquubaadkeedu ka mid ma aha in wax la gubo, noolaha in la gubo ka mid ma aha. nebigu waa diiday sal alay wasalam. marka quraanjadii buu nebigu u naxariisanayaa, shimbirtii buu u naxariisanayaa, xayawaanaadkii buu u naxariisanayaa, kii xoolihii la dhaqanayay buu nebigu u naxariisanayaa sal alay wasalam. xadiidkaasina ibn abi shayba iyo axmed yaa soo saaray. kaa hore waxaa soo saaray imaam muslim caleyh raxmatullah ee ku saabsan shimbirta lagu toog dhisanayo. tan dambana waxaa soo saaray ibn abi shayba iyo axmed iyo abu daawuud iyo keyrkood, waana xadiis sugan waaye. mar kale nebigeennu sala allahu aleyh waali wasalam waa ka ummaddiisa baray inaan muxuu ahay noolaha muxuu ahay aan la cadaabin oo aan la rafaadin oo dhibaataynin. xadiidkii cabdillahi bni cumar waa kii rasuulku sal alay wasalam dakhalat imra'atun annaara fii hiratin rabatatha, haweeney baa bisad ama mukulaal sababteed bay naar ku gashay, way xidhay, cuntadiina mayna siinin, waxay ku noolaan lahayn mayna siinin. inay bannaankeeda aaddo oo ay soo qarhaabato oo ay waxay soo raadsan karto raadsatana way ka xidhay, meeshiina cunto mayna ku siinin, sidaasay ku dhimatay, naar bay u gashay buu nebigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh. bukhaari iyo muslim baa soo saaray. muxuu nebigu ummaddiisa barayaa xayawaanaadka iyo noolahaas ilaahay noolaystay in loo naxariisto oo muxuu ahay aan la cadaabin, oo aan gaaja loo dilin, oon oon loo dilin. bal iskaba dhaafay nebigeennu sala allahu aleyh waali wasalam eyga oo khasal xayawaanaad ka mid a, xayawaanaadka kuwa ugu liita ka mid a, ayaa nebigu sal alay wasalam wuxuu tilmaamay ciddii u naxariisatay inuu ilaahay janno ilaahay ku galay. xadiidka abu hurayra nebigu wuxuu leeyay sal alay wasalam nin baa isagoo socda baynamaa rajulu yamshi biariiq, nin baa isagoo jid socdo oo socotaa ayaa waxa weeye oon daran baa qabtay, ishtadda calayhi alcatash, oonkii baa ku daraaday, aad buu u oomay. markaasuu wuxuu yimid ceel buu ku yimid, ceelkii buu galay, wuu ka soo cabay. markuu ceelkii ka cabo isagii uu oonkii ka baxay ayuu markaa kadib ka soo baxay ceelkii. markuu bannaanka u soo baxay wuxuu arkay ey dacasha muxuu ahay biyahan bannaanka ku daadaadsan ee ceelka bannaankiisa ku daadsaadsan biyaha yani waxa weye qoyaankaas carabka laalaadinayo leefleefaya. yani waxa weeyaan markaasuu nebigu ninkii wuxuu yidhi walle eygan oonkii iqabtay baa haya, rafaadkii i hayey iyo dhibkii i hayey mid la mida haya buu yidhi. markaasuu ceelkii ku noqday, kabtiisa khufkeeda intuu siibay ayuu ceelkii galay, khufkiibuu biyo uga soo buuxiyey,
intuu afka ku qabtay khufkiya buu ku jiro buu ceelkii soo fantay oo kor u soo fuulay markaasuu eygii waraabiyey fashakara allaahu lahu fagafara lahu nabi sal alay wasalam ilaahay baa uga mahad celiyey oo uga shukriyey waxa uu sameeyey waana u dembi dhaafay alla tabaaraka wa tacaala sidaas wey markaasi saxaabadu waxay yidhahdeen qisadaa markuu nebigu saxaabada u sheegay ayaa waxay yidhi o rasuulka ilaahayow wa ina lanaa fi lbahaa'imi ajran oo waxyaalahan aan hadlin iyo xayawaanaadkan aan hadalka lahayn wanaaggii ixsaanka aan u samayna ma ajir baan ka helaynaa markaasaa nebigu wuxuu uhi sal alay wasalam nacam fii kulli dii kabidin ratbatin ajrun buu nabi sal alay wasalam yacni mid kastoo beer qoyan leh nafi ku jirta waaye wixii ixsaanee loo sameeya ajir baa laga helayaa buu nabi sal alay wasalam xadiidkaasi riwaayo kalea xadiiska kagu yimid oo abu hureyra uu warinayo oo cidda eyga waraabisay ka dhigaya inay ahayd haweeney zaaniyad ah oo dumarkan jirkooda yacni kharrimay ee xumaanta galay ayay ka mid ahayd ey bay marka waraabisay ooman ilaahay baa tabaaraka wa tacaala ugu dembi dhaafay marka nebigu sala allahu calayhi waaalihi wasalam muxuu ahaay iska dhaaf saxaabadiisa iska daa aadamaha kale iska daa xataa xayawaanaadku u naxariis badnaa nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh saa ugu naxariisan jiray xataa wuxuu u naxariis badnaa nebigu sal alla alay wasalam yacni waxa way cadowgiisa